Telefoonka gacanta ama moobilkaagu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee sida joogtada loo isticmaalo. Hase ahaatee, beryahan dambe dad badan ayaa ka muujinaya cabasho ah in lala isticmaalo moobilkooda ama la basaaso iyadoo lala wadaagayo qofka xogtiisa shakhsiga ah. Haddaba maanta waxaan halkan noogu soo gudbinayaa calaamado haddaad ku aragto moobilkaaga uu yahay mid lagu basaasayo laguna isticmaalayo moobilkaaga. Waxaynu ka soo qaadanaynaa calaamadahaasi kuwa ugu muhiimsan. Haddaba intaynaan bilaabin, fadlan hanaga ilaawin inaad subscribe saarto. Soo dhawaada asxaabta. Calaamadda koowaad ee aad ku garan karto waa isticmaalka internetka ee dhaantada oo kor u kaca. Waxaad tagtaa telefoonkaaga qaybtiisa muujinaysa isticmaalka internetka ee loo yaqaano data usage si aad u aragto xaddiga dhaantada ee kaaga baxda internetka. Haddii aad ku aragto xaalad aan caadi ahayn ama telefoonkaaga oo marka aad wax ku soo dejinayso aad u cuslaada ama aad aragto isticmaalka internetkaagu uu sabab la'aan kor ugu kacayo, waxaad ogaataa inay tahay calaamad kuu sheegaysa in cidi ku basaasayso ama telefoonkaaga aad ku shubtay barnaamij lagula soconayo. Calaamadda labaad, baytarigaaga oo si degdeg ah dabka uga dhammaado. Barnaamijyada basaasidda maadaama ay shaqo joogto ah ka wadaan telefoonkaaga, mar kasta waa ay shaqeeyaan adigoo aan arkayn. Haddii aad aragto telefoonkaaga oo si caadi ah dabka uga lumayo, waxaad ogaataa in cidi kaa jabsatay oo xogtaada basaasayso. Calaamadda saddexaad, telefoonkaaga oo kululaada. Haddii heerkulka telefoonkaaga uu kor u kaco xitaa mararka qaarkood adigoo aan isticmaalayn, waa calaamad suurtagal ka dhigaysa in telefoonkaagu si xawaare sare u isticmaalayo internetka, sidoo kalena ay jirto cid basaasid ka dhex wada telefoonkaaga. Calaamadda afaraad, telefoonkaaga oo cid iska garaaca ama fariin iskaga dira. Haddii aad aragto telefoonkaagu oo isku tegaya qaybta dirista maseejyada ama si toos ah cid iskaga wacaya ama sidoo kale isu diyaarinaya inuu fariin diro, waa calaamad muujinaysa in lagula isticmaalayo moobilkaaga. Calaamadda shanaad, telefoonkaaga oo si toos ah u tegaya qaybta duubista muuqaalka ama live-ka tooska ah waxay ka mid tahay hababka basaasiintu adeegsadaan, waxayna ujeedadoodu tahay inay si muuqaala ula socdaan dhaqdhaqaaqa qofka iyo codkiisaba. Calaamadda lixaad ee ugu dambaysa, iyadoo ay jiraan calaamado kale oo badan, haddana waxaan ku soo koobaynaa calaamadan. Haddii aad aragto emailkaaga oo isxidhay ama shirkadda emailkaaga ka isticmaashid oo xidhay, waxaad ogaataa inay jirto khatar ah in laga jabsaday oo qaybta ammaanka oo shirkaddu dareentay, kadibna sidaas emailkaaga lagu joojiyey. Intaas waxaa inoogu eeg calaamadaha uu qofku ku garan karo in lala isticmaalayo moobilkiisa oo ah kuwo si toos ah loo dareemayo. Haddaba la wadaag asxaabtaada si ay u ogaadaan ugana taxadaraan. Hana naga ilaabin inaad subscribe saarto, naguna soo biir. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.